ciwaankeedu yahay xayawaanaadku waa ay tasbiixsadaan. wuxuu ahaa nin kalluumaysta ah kaasoo maalin kasta soo kalluumaysto kalluun. markuu soo kalluumaysto qaar ka mid ah kalluunka uu iibgeynayaa, lacag ayuu kusoo bedelinayaa. qaarna wuxuu geynayaa gurigiisii, qoyskiisa ayaa waxay ka dhiganayaan cunto. ninka maalin kasta shaqadiista ayay ahayd. maalmaha ka bilaa waxaa dhacday eegoo ciyaalkiisii asaga wada qadaynayo ayuu u sheekeynaya. ciyaalkaa wuxuu ku yidhi, aabo, haddii kalluunkan maanta aan cunayno uu tasbiixsan lahaa, maantay aniga ma soo qaban lahayn, adinkana ma cuni lahayn. ilmihii ayaa yaabay, indhaha taagay. ciyaalkiisa waxaa ka mid ahayd gabar yaroo aad u caqli badan. isla markii ayadaa soo booday, waxayna ku tiri, aabo, kalluunka miyuu tasbiixsadaa? miyuuna ahayn xayawaan? xayawaanku ma tasbiixsadaa? aabihii wuxuu yidhi gabadheeda, haa, xayawaanaadku way tasbiixsadaan. sidoo kale kalluunkan wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka wuuna tasbiixsadaa. wuxuuna u akhriyay aayadda ah, وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. شيء مجرى إلا هو تسبيح صدا، لكن أنا كاداتي وبالآدم كما فهم إنسان سوء تسبيح صدا شيء قاسي. مركا أيها يا إسفهم كلونك الله لو يفهم يا مركا كلونك هو تسبيح صدا، لكن أنا قابك تسبيح صدا ما فهمي كرنا. إن جوري جوابتي كوكا عليه marka maalmaha ka mid ah soo aaday shaqadii oo xagga iyo meeshu ka soo kalluumaysanay soo aaday. inantii yar ayaa soo raacday. waxay raacdo maanta waxaan rabaa inaan ku raaco xagga iyo meesha aad wax ka soo kalluumaysanayso inaan kula tago ayaan rabaa. inantii way soo raacday. marka la yimaado meeshii wuxuu dhigay aabihii sanadii uu ku dejinayay kalluunka uu soo qabto. marka aabihii wuxuu bilaabay inuu maqaalinta ku tuuro xagga iyo badda. markuu maqaalinta tuuray waxaa ku soo dhacay kalluunkii. wuxuu dhigay gabadhiisii, wuxuu dhahay aabe sanadaas ku rid ee noo hayo. dhowr xaba ayuu soo qabtay. markuu soo qabtay wuxuu dhiibayay gabadha. gabadha ayadana markii loo dhiibo iska markii waxay samaynaysay badda ayay ku celinaysay. aabihii wuu mashquulsay, asaga uma jeedo. markuu soo dhiibo way ka qabanaysaa, markuu sii jeesto idana badda ku celinay. marka aabi dhowr xab uu soo qabtay uu isdaa maanta in kugu filan waad haysataa bas ka dheh. ayuu marka gabadhu wuxuu dhahay keen aaba sanada aan tirnay intaan maanta qabana. aabihii markuu sanada fiiriyey waa yaaba, waxba kuma jiraan. markaasuu qayliyey. aabu wuxuu yidhi xaggee geysa kalluumankii aan soo qabanayay? gabadhu waxay dhahday, aabu waxaa ku celiyey badda. aabii waa xanaaqay. maxaad badda ugu riday? waxaan maantana soo qabanaya ayuu yidhi aabihii. waxay gabadhu u jawaabtay, aabu maalintii daraad markaad noo sheekaynaysay waxaad nagu dhahday kalluunkan hadduu tasbiixsan lahaa ma soo qaban lahayn. marka aniga waxaan dareemay dhammaan kalluumanka guriga aad noo keeni jirtay iyo kuwa aad iibin jirtay intaba inay yihiin kuwa aan tasbiixsanayn. waxaana ila xumaatay in gurigeeni la keeno wax aan tasbiixsanaynin, maadaama uu yahay gurigeeni guri khayr loogu barta. saa ayaan jeclaada aabo, kalluunkan anaga ma rabno maadaama uusan tasbiixsanayn. aabihii waa yaabay. wuxuu ku qancay jawaabtii ay gabadha yarad bixisay. waa ka aamusay. alaabtiisu soo qaatay. wuxuu yidhi inakeen aan xaafadda aadnay. way soo baxeen, guriga ay yimaadeen. arrinta waxay ugu sheekeeyeen ciddii guriga. ciddii sidoo kale waa ku qanacday. markaas habeenkaasi guriga wax ma yaalaan. kalluunkii baddaa lagu celiyey. wax lasoo iibiyey malahan maanta.
ayagoo yaaban ayaa guriga marka waxaa soo maray nin xaafadaasi ama magaalkaasi ka ahaa madaxa ama guddoomiye wuxuu doonaa ahaadee asoo meesha maraayo ayaa wuxuu arkay ciyaalkii oo banaanka fadhiya markaasuu wuxuu weydiistay biyo ninkaa markaasi wuxuu ka warraadinayay xaaladaha magaalka biyihii markuu weydiiyey inantii yareedaa baxday biyihii u keentay oo inantii maa mid oo aabii raaciisa maa mid kale ayaa baxday oo biyaha u keentay siisay kadib biyaha markuu cabay lacag gaarayso 100 dirham oo kaloo gacanta ka saaray inantii aad u farxday aad u boodboodaysa guriga gashay waxay ugu sheekaysay aabii aabbaha saa weydiiyey wuxuu yidhi maxaad u farxaysaa aab maxaad u boodboodaysaa maanta markaasay dhahday aabna ayaa inta imaaday wuxuu u weydiiyey biyaha markaas siiyana wuxuu u siiyey 100 dirham inta dhan aad u farxeen markay farxeen inantii maalintii aabihii badda u raacaysay ayuu ma farxin way aamusnayd marka cidii waa la yaabeen waxay dhaheen aabbo lacag baana loo keenay anaga dhan waan faraxsannahay adiga maxaad u farxi laadaha markaas waxay dhahday aabbo adigu waxaad ku farxdeen lacag yaroo qof bilaadan adinka oo kale idin keenay bal ka warama hadduu ilaahay doonaysa na siiyo saan noqon lahayn taas ayaan aabbo ka fikiraya waa in aad iyo aad u caqli leh marka waxaa lagu sheegayaa ciyaalkiinaan ku barbaariya diinta islaamka bara diinta iyo dhaqanka wanaagsan waxaan soo jeedinaya aniga waa liibaan yuusuf cali farxaaye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh